waxaana sidoo kale idinka codsanayaa idinkoona muuqaalka fiirsanin in aydan maaragtay su'aal isoo weydiinin tusaale ahaan muuqaalku waa 10 daqiiqo ama 12 daqiiqo ama 13 daqiiqo waxaa arkaysaa qofkii hadda aan dhig isla markii qof hore su'aal ka soo qoraa isagoona muuqaalka maaragta fiirsanin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا صاحبيال halkaad iga daawanaysaan waa YouTube channel-kayga Cabdalla Muxya in dhaweyd kamaana soo muuqanin channel-kayga waaba ilaawaba inaa channel lahaa waa ka xumahay in asxaabta channel-ka ku cusub waxay idinka codsanayaa in channel-ka aad ku soo biirtaan minkiin inaa ka dhigtaan aydan ismartiyeenin asxaabta hore noola joogtana waxaan idinkaga mahadcelinayaa kommentiyada quruxda badan iyo mar walba muuqaaladii sidaad u share garaysaan aad idinkaga mahadcelinayaa mahadsanidin insha Allah muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay muuqaal aan hore u balan qaaday inaan bartayda YouTube ka soo galin doono aan ku balan qaaday TikTok aan dhahay waxaan ka soo hadli doonaa barnaamijka 5 groupka ama welcome card halkan Mareykanka looga yaqaan welcome card marka insha Allah shuruudihiisa waxyaabaha la iska rabo two faces kiisa barnaamijka maadaama uu laba face leeyahay face 1 iyo face 2 muxuu yahay horta barnaamijkan insha Allah muuqaalka intaba ma aragtay kaga bogan doontaan haduu Ilaahay yiraahdo channelka noo qurxiyo oo like noo saar insha Allah barnaamijkan welcome card ama 5 group waxaa looga yaqaanaa dalkan Canada ee dariskeena ah balse halkan Mareykanka waxaa looga yaqaanaa welcome card barnaamijkan wuxuu daba socdaa laba barnaamij hore oo hirgalay kuwaas oo kala ahaa barnaamijkii dalka ma aragtay Ukraine dhibaatada ka dhacday dadkeedii halkan lagu keenay iyo barnaamijka kale ee Afghanistan dadkii Afghanistaniyiinta ahaa lagu keenay halkan marka maadaama uu barnaamijkaas labadaas barnaamij ee dhaqan galeen waxay isdhahan kana daba dhiga hadii uu hirgalo ama dhaqan galo si ma aragtay official looga dhigo barnaamijka hadda waxay ku bilaabeen face-kiisa hore anaga ma maleynay inuu noqoseeyo Soomaali ahaan hadii aan nahay waa naaragtay qofka adima dooranaysid lagu keenayo ama qofka ma aragtay dhehaysid waan maxaa la dhahaa kafaala qaadaya ama anaa ka masuula dhehaysid qof adi aad dooranaysid ma ahan marka face-kiisa labaad ama aragtay aad noo quseeya anaga ka soo furmi doona haduu Ilaahay yiraahdo June bisha 6aad haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah marka barnaamijkaneeto waxaa loo bilaabay ama ma aragtay looga damacsan yahay looga dan leeyahay ma aragtay dadkii la soo qaadi jiray refujiga ahaa oo qaxootiga ma aragtay xiriyaha qaxootiga laga soo qaadi jiray ee halkan hay'adaha keen jireen hay'adaha qarash kaga bixi jiray waxay rabaan hay'adahaas in ma aragtay qarashkooda iyo howlahooda u baaqdaan ama hawsha ay iska yareeyaan si ma aragtay muwaadiniinta Mareykanka ama dadka xataa green card ka haysta in ay ma aragtay hawshaas qabtaan maxay tahay hawsha la qabanayo waxa kamid ah qofka markuu meeshan imaado in ma aragtay aad meel dejisid ama aad ma aragtay guri u raadisid intuu ma aragtay sharciyadiisa ka helaayo aad ma aragtay adiga kafaal qaadid inta ma aragtay shaqo uu ka helaayo in aad ma aragtay aad shaqo la raadisid markuu shaqo helo oo qofkan sharciyadiisa hela shaqo helo oo lugiis ku istaago markaas ma aragtay dhigi kartaa lugtaa furan ama guri u heshid shaqo u heshid kadib waxa dhigi kartaa lugtaada furan marka barnaamijkaneetu saasay u soo saareen waxay rabaan ma aragtay hawsha inay ka kala yaraato qarashaadka kaga bixi jiray inuu ma aragtay u baaqdo يعني هدوسن أودا باقنين هاف إنه باقدو أنت كلاتنا ما عرفتي دتك موادنين تمريكان كيها أما دتك ما عرفتي جرين كاركاستي هالكان جوجو سي هوش سو قبطان مركب برنامج كانيتو وبرنامج يعني عصب وحو بلاودي أكتوبر سنة كوريليين بس وحا أوغانا أنا هدا جانوري أوغاني مرك إن شاء الله محو يا هرت برنامج كان وبرنامج كندا كجرا 5 جروب كعمل أو ما عرفتي شن قفوت oo ma aragtay isku meel degan ama isku dhadhow oo shaqeysta taxi payer ah oo ma aragtay wadanka dambi aan ka galin inay dhahaan dad baan ma aragtay kafaala qaadayna shantooda qofood shan qofood way kafaala qaadi karaan family way kafaala qaadi karaan oo ma aragtay 7 qof 8 qof ka kooban ala qofna ma aragtay waa in hal qof shantiina ka soo qaadadii ay dhahdaan hal qof ma aragtay kafaala qaadayna waxa la idin ka rabaa $2275 marka وبرنامج يعني دولة مريكانكا إيه هدي وهرجلو tirada inay ziyaadisa laga yaabo hadda waxay qoondeeyeen 5,000 qof marka hadii uu ma aragtay dhaqan gala barnaamijka oo sidii la rabo uu noqdo
phase 1kiisa uu hirgalo phase 2 inay bilaabaan oo dardargeliyaan oo boobsiyaan marka insha Allah phase 2ga qofka aad dooranayo halka phase 1ka aadan qof dooranayn laga yaabaa qof maaragtay ajnabi ah lagu keeno qof aan Soomaali ahaynba in lagu keeno marka phase 2ga markuu bilaawdo aad xor u tahay in maaragtay dhahdid qof hebel ama maaragtay kafaala qaadaya ama aan soo dhaweynaya ama aan magangeliyo u sameynaya marka qofka maaragtay aad dhehaysid waa in aan kafaala qaadaya waa inuu yahay qof heesta kaarka qaxootiga يعني أي قف مسك دي كرتي ما معركتي كل محل حان أسمينا وكفالة قاضية إن دحيد ما معركتي ساس ومشقية وإن قفك refugee camp وك معركتي ديوان جلسيها ما كرجستر جريسيها هدي وسن كرجستر جريسنين يعني برنامج كما صعنايا marka insha Allah shanta qofood ee halkan joogto waa in ay isku state joogan tusaale ahaan adoo Minnesota joogtid yani qof Ohio jooga ama state kale joogo barnaamijka lama sameyn kartid waa in hal state asla joogtaan isku area aad degan tihiin oo ma aragtay shan qofood oo nadiif ay ahaadaan shantaas qofood oo ma aragtay dad shaqeysta ah dad taxi payer ah dad canshuur taxareey canshuur celiya inay yihiin iyo dad aan dambi galin يعني قف كريمنال برنامج كان يتكلم قبل قال كرو مركا وابا انتاس بكلية على قف فدي دهدان شنتين قفات شن قفات ما عرفتي عن كفالة قاعدنا أم برنامج كانوا حرينا دهدان وشن لو رفتي لو بكون لو بقول داتن إيشن دولار أنت أنا قلت على ذيك كربا مركا هدي دهدت فاميليا ما عرفت كينا يا أو ككوبن طبعا قفات فاميل كاس أنت ما عرفت حلا جربا أتصور ويسد هاد ما عرفتي meelay degan siisid waxay cunaan aad ka faal qaadid ilaa ma aragtay guri kale helaysid ilaa sharciyadooda aad ka helaysid ciyaalka ilaa iskuul aad kale helaysid aad ma aragtay aad ka geynaysid intaas oo dhan qofkaas ay taado dependent ugu yahay yani 9 maalmood waa in ma aragtay dadkaas ay taado howlahooda ugu dhameeysaa ama aad ma aragtay ka faal qaadi kartaa yani tusaale ahaan marka la xareeyo sharciyada waxay iska qaataan kuwa qaar iska maqnaada bil laba bil kuwa qaar iyoo ka imaadaan waxay ku xiran tahay dadka iyo nasiibkooda marka ilaa qofkaaseeto ama familkaaseeto oo lugahooda ay kaga istaagayaan adiga ayaa laga rabaa in aad ma aragtay maxaa la dhahaa aad dhahdid oo dhaxd u xiratid dhahdid anaa ma aragtay u sameynayo waxaas waaba intaas kaliya dadka xagga jooga oo ma aragtay Afrika jooga ama Asia jooga ama wherever ay joogaan waxa kaliya laga rabaa in ay haystaan kaar qaxooti aysan ma aragtay ahayn dad dambi galay ama ma aragtay dad criminal ah ma keenayaan waa lagu soo baaraya lagu soo jeegareynaya in ma aragtay cadeysid inaadan dambi lahayn waxa soo dhan in ma aragtay qaybtooda ay soo dhameeyaan marka barnaamijka phase 1 already wuu socdaa yani qof rabta inay qayb qasho ma lahan yani qof aadan garaneyn in qof in loo keeno rabto ma jirto ma lahana u maleynaya balse waxa loo wada jaakiraya oo la wada sugaaya barnaamijka qaybtiisa labaad ee bilaabanayo sanadkan dhexdiisa bartamihiisa bisha 6 June insha Allah marka wixii ku soo kordho ama aan ma aragtay laga dhaxana insha Allah halkaan ay idinku soo gudbin doona xogto dhameystiran sidoo kale website-ka linkigiisana description-ka idin soo galin doona haduu ilaa yiraahdo si aad ma aragtay xog badan aad halkaaseeto ma aragtay ka akhrisataan hadii aadan English aqoonin intaan hadda aniga ku sheegayo ayaa kugu filan inaad ka ogaatid marka waa inaad haysid 5 qofood oo isku meel joogto isku xiran oo shaqeysato nadiif ah halkan ku joogto adigana aad haysatid kaar qaxooti ah ama aad ka register gareysan tahay ama aad ka diiwaan gelisan tahay meel refugee camp ah waaba intaas barnaamijka intaas kaliya iyo dadka halkan jooga inay awoodaan lacagtii inay maaragtay bixiyaan marka la xareenayo $2275 laga rabaa cala qof oo loo xareenayo 5 qofood hal qof kaligiis kuma xareen karo 2 qof ma aha 3 qof ma aha 4 qof ma aha waa 5 qof ugu yaraan sidoo kale barnaamijkan waxa ka qayb qaadan kara dadka businessyada leh business weyn hada leedahay kaleete ma u baahnid yani qof labaad istaadi afraad businesskaaga kaliya ma aragtay aad ku goran garan kartaa sidoo kale community-ga ma aragtay Soomaalida meelaha ma aragtay hadda Somali Museum oo kaleete way dhigi karaan waa ma aragtay yani waa keeni karnaa dad sidoo kaleete iskuulada way sameyn karaan college-yada way sameyn karaan marka barnaamijkan insha Allah faa'iido weyn ma aragtay ku jirto insha Allah feeskiisa labaad markuu bilaado ayaan ma aragtay isla eegi doona aan ka soo warbixin doona haduu ilaahay yiraahdo marka macluumaadka aan ugu talagalay inaan barnaamijkan welcome card aan kaga hadlo ama 5 group aan kaga hadlo intaas aan rajeynaa in idin kaga filan tahay wixii aad su'aalo qabtaan comment-iga soo qora
waxaana sidoo kale idinka codsanayaa idinkoona muuqaalka fiirsanin in aydan maaragtay su-aal isoo weydiinin. tusaale ahaan muuqaalku waa 10 daqiiqo ama 12 daqiiqo ama 13 daqiiqo, waxaa arkaysaa qofkii hadda aan dhig isla markii qof hore su-aal ka soo qoraa isagoona muuqaalka maaragta fiirsanin, su-aashaasoo aan ku sarxay ama aan kaga hadlay aan maaragta si tafatiran videoga muuqaalka aan kaga hadlay. marka waxaas waa laga fiican yahay, waqtiga iga galay maaragtay juhdiga iga galay in maaragta aan sharxo, marka dhameyso kadib maaragtay muxuu ahaa su-aal isoo weydii adoonan muuqaalka dhameysanin su-aal ha soo qorin. waa idinka codsanaya intaas, waa codsi, ama samee ama iska daay, hawshiina wata. aada idin salaamayaa, maalinka idin wacnaato, habeenka idin wacnaato. waa walaalkiin Cabdallah oo idin leh insha Allah waa inoo barnaamijyo kale. youtube-ka intaan waa ka jiifaa, waa ogahay insha Allah saan wax baa ka bedeli doona hadduu Ilaahay yiraahdo. marka aada idin salaamaya, qof walba maqaamkiisa ku salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.